أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي mahadiisa waa daan markale habada kusoo laabanay anagoo wanaag isfareen xumada iska reebanay ilaahay subxaana wa ta'ala waxaan ka baryay dhammaanteenba ilaahay naga dhigaa kuwa ku intifaaco. waxaan bilownay xalaqa aan kaga hadlaynay akhlaaqda wanaagga ay leedahay iyo akhlaaqdan inay tahay diintan islaamka waxyaabaha nabiga loo soo diray calayhi salaatu wasalaam inay tahay inay akhlaaqda ay kaamisho. inamaa bucistu liitamami makaarim alakhlaaq, xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka waxaan yidhi xalaqa waxaan bilaabi doonaa, hadda kahor waxaan ka hadalnay xalaqood aan ka samaynay akhlaaqda wanaagsan oo runta iyo waxyaabaha wanaagsan ah. xalaqaadka aan bilaabayn waxay tahay akhlaaqda xun inaan barano lidnatafaada si aan ugu fogaano. maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waxaa lagu soo saleyday maalmahan dad aan akhlaaq lahayn. marka bal dadka waxyaabahay sameynayaan inay dembi tahay oo nabiga ka digay calayhi salaatu wasalaam oo diinteenina meel ay ugu banaan tahay ay jirin inaan xasuusino ayaan u sheegaynaa. maaha in xumaantooda inaan sheegno keliya, laakiin waxaan ujeednaa siduu nabiga nooga digay calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele diinteenaan wax fiican markayna amartay wax xun waa naga reebtay. marka dad badana wax xun waxay u maleen wax fiican inay yihiin. marka akhlaaqda oo aan sheegnay martabadeeda iyo makaanadeeda aan xalaqadooda kasoo sheekeeyey, maanta akhlaaqda xun ilaa iyo 51 wey akhlaaqda qofka muslimka la doonayn oo iska ilaaliyo. akhlaaqdaas hadduu kusii foobo macnaheeda waxaa waaye wuxuu ku jiraa akhlaaqdii xumeed oo madmuumda ahayd oo islaamka kadib uu dhex taagan yahay. dad badan aan ku aragnay xataa mararka qaarkood dad asdhehaysa culamo weeye ama asdhehaysa ducaad weeye ay arkaysaa inuu akhlaaqdaas hadda aan ka hadlayna maanta qaarkeed inay ku dhacaan akhlaaqdaas xun. maxaa yeele akhlaaqda xun midna waa xumaanteeda dadka dhanaa wada garanayo, dadna ma garan karaano waxay u maleeyaanba inay tahay wax wanaagsan. oo arkaysa soomaaliya maanta dowlad kastoo noo dhisanto, ummad kastoo inay isku timaado, dad ayaa tifiyada iyo dood iyo muran usoo taagan. marka maanta waxaan ka hadlaynaa diinta maxay ka qabtaa muranka iyo doodahan oo dadka shaqada ay ka dhigteen. waxaa la yidhahaa islaamka wuxuu noogu sheegay aljadalu walmiraa. aljadalku waxa weeye dood, oo markay fasirayaan culamada imaam jurjani iyo keyrkiisa waxay leeyihiin jadalka sideeda waxa waa uu yihi almufaadala calى sabiili almunaazaca walmuqaalaba. waxaa waay qof aad doonaysa dood ayuu meel usoo fadhiisanaya, wuxuu rabaa inuu dadka kale ka adkaado oo asaga uu garta leeyahay. waa macnaha xaq inoo sheegay kama aha, dad inuu hanuuni kama aha. walidaalika waxaan arkaynaa waxaa hadda maalmaha nagu soo batay dad habeen kasta oo live fadhiya habeen kasta waxay ka hadlayaan umuurihii waaweynaa islaamka oo dowladdii iyo waxaasuu ka hadlaya. maalin kasta mawduucu soo qaadanaya base reaction ku yahay maanta maxaa dhaco leey, maanta waxaasaan ka hadlaya habeen kasto. marka dhinac asaga waxay laga yaabaa inuu shaydaanka tusay shaqo way, ilaan dadka ma ogo inta badan dadka habeen kasto live ka soo gala shaqo way, waa shaqeystaan oo fiyugaas usoo gashay ayaa lacag lagu siiya akoonkooda lacag ugu soo dhacdo. marka asaga dhinacaas oo shaqada keliya ayuu ka fiirsaday. marka laakiin islaamka muxuu ka qabaa doodaas iyo mujaadaladaas oo meesha usoo galayo iyo miraagaas oo ah inuu dadka adkaado. arina dhacday arrintaas oo tacliiqa maanta dhan tacliiqu ka bixinaya, comment ka bixinaya, dad badan dhageysanayo, dad amaanayo. walidaalika istishfaa nafso naftiisu raali garayna. waxa qofku mucaarad ku yahay meeshaas wuxuu rabo ugu sheegaya, qofka la jirano meeshaas ku amaanaya. habeen kasta marka saas lacagta soo dhacaysa Allahu a'lam haduu lacag kale ee dad kale uu ka qaato ma garan karo, kuma dibaabi karo. laakiin waxaan hubaa dadka youtube-yada iyo facebook-yada live ka soo galay in lacag intooda badan ay qaataan waa ogsoon yahay. saas daraadeed laakiin ma ogo arrintan uu ku jiro jadalka aan wax ka sheegaynaa. marka walidaalika qaar waxay yidhaahaan miraa'adana waxay tahay waxaa almulaaxaati lishaksi libayaani qalatihi. qof ayuu rabaa ceebtiisa inuu sheego. maanta dowlad ayuu rabaa inuu gaf ay gashay, bini aadan gaf waa ka dhacaya, ama sheekh uu rabaa inuu gafkiisa sheego. maanta dhan waa soo koraya laaf, maanta waxaa la karbaashaya, maanta waxaa la dulku soconaya erey mustalaxaad waxaa soo baxay oo qofka ogeynba inuu dembi ka qaadanayo. asaga lacag dhinaca lacagta inuu fiiriya laga yaabaa, ama uu isleeyahy taageero hel. xataa dad ducaad aa ku tilmaami kartid ayaa habeen kasta life taagan. ani ma fahmin ninka habeen kasta oo dhacdo kasto waxaa la yidhi kafaa bilmari ithman an yuxadisu bikuli ma samic. nabigu wuxuu leeyahay habeen kasta waxaa dadka dembi ku kaafiya uu yihi ninka oo wax kastoo maqlo dadka u sheego, dadka u sheego. famaa baali ninka maanta idaacada la socdo, maanta qarax maa dhacay, maanta dowladda ama waxa laga yaaba xataa nin munaafiq wuxuu usoo qoray arrintaasaa dhacday ka hadal al dhahaa asaaba la tawjiihinaya. waxaa leeyahay arrintaas ka hadal, markaasuu caawa wuxuu ka hadlo u haastaa waxaasoo maanta dhan ku rabaynaya. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام
aayaadka qur-aanka hawsha aad haysid diinta maxay ka qabtaa ma is weydiisid marka hadafka aad leedaha maaha inaad wax saxdid maxaa yeele haddaad wax saxaysid nasiixada waa iska inaad wax caam ka hadishid laakiin particular specific dad uu tilmaamaya qof uu magacaabaya madaxweyne goboleed uu magacaabaya madaxweyne soomaali ha ahaado wasiir maanta dhan specific dad uu hadlaya marka ma ogo dembiga kasoo gaaraya iyo diinta islaamka jadalkaas wuxuu rabaa marka baab muqaalaba asaga inuu saxo walidalika qaalo kale iyo naftigooda waxaa arkaysa qaalo kale oo idin mufakiriinta iyo la dhahayo oo la dhahayo waa fikiraan iyo marka waxa qaladkoodan dawladda inay tartiib ugu sheegaan ma raba ayagaas waxaa laga yaaba inay isku rabaan sumcad oo rabaan ayaga in la yidhaha wallahi dadka saasay sheegeen ma aha waxaad haysin soo qoraal ah u gudbiya dawladda u gudbiya dadka oo gafka galaya u gudbiya oo la sheergareeya waxaa dhahda arrintaasaan haynaa meeshaas laga saxo laakiin maanta dhan adig haddii qof la daba dhiga ka waran maxaa tahay munkar iyo catiib iyo raqiib ma tahay oo afcaasha dad kale lagu daba dhigo maanta dhan aan kan taxliilay hebel saasuu suubiyey hebel kale saasuu yiri marar qaarkood dadki wuxuu daalacanaya qulubtooda saasuu yiri laakiin saasoo ka wadaa wuxuu damacsan yahay saas waa kuwa idaacadahan oo sheegaya maanta dhan been bay sheegayaan oo jadalkaas iyo doodaas walidalika waxaa la yidhahaa waxa waa mulaaxaati lishaksi libayaan qalati waifhamihi marka baacifka ama hadafka uu ku leeyahy maxay tahay waxay yidhahen culamada waxa waa atarafuc inuu asaga aqoonyahan yahay asaga inuu nin wax ogsoon yahay war hadda muxuu ogsahay kaala dawladda soo sharax imow tag meesha tag laakiin meelaha yurub aad joogtaa habeenkas tv ummadda inaad soo fadhiisat dadka ha qasin ha waalin ha yeelin dembigan ku dhacaysaa walidalika imaam jurjani wuxuu leeyahay miraa'ada waxaa waayu yidhi tacnu fi kalaami lgayr dadka kale hadalkooda inaad istiyaad ku samaysid waxay yidhaaheen gaf dhaca maanta uu raadinaya gafkaas hebel dhacay life uu habeen kasta ugu jiraa wuxuu leeyahay liidhaari khalala fihi min gayri an yartabida bihi qaradu siwa taxqiir alghayr hadafkiisana waxaa waa inuu dadka yeeso oo yidhaha kuwaas wax ma ogo madaxweynahaas wax ma ogo wasiirkaas wax ma ogo dawladdaas saas wey intaas ayuu u maleeya inay tahay saas daraaddeed tafsiirka dhara oo imaam tabarani akri marka waxaa akrisaa ninka haddaad daaci tahay tafsiirka waxaa akrisaa oo imaam tabarani wuxuu leeyahay aayadda markuu fasirayo oo xajka ka hadlaysay falaa rafatha walaa fusuuq walaa jidaala fi lxaji markuu ka hadlay ibnu mascuud wuxuu leeyahay waxa waaye macnaha waxaa lala jeedaa an yumaari saaxibaka wuxuu yihi qofka inuu qofka kale saaxibkiisa oo dood iyo dood kumid xataa yuqdibu iloo ka caraysiiyo walidalika dadkan hadda tviyada habeenka soo fadhiisanayo waxay rabaan dad inay ka carayseen kan dawladda la jiro wuxuu rabaa mucaaradka inuu ka caraysiiyo kan mucaaradka wuxuu rabaa kuwa kale inuu ka caraysiyo marka hadafkiisa dhan maaha ilahay dartiis maaha lacagtaas oo akaanka ugu soo dhacayso oo ka qaato youtube-ka ama ka qaato facebooka iyo waxa ah walidalika wuxuu yihi aayaddaas markuu ku firay ibn mascuud wuxuu yihi waxa waaye doodan aad galaysid oo dadka u sheegaysid waxbaa taxliilinaya ciwaan oo soo saabsan maanta doodeena waxaasi ku saabsan tahay markaasuu ummadii xamana oo rifaac waxaa laysa hada xan yaa ku baneeyey adig inaad haddaa wax saxaysid arintid inaad waxaa sheegaysa sax yihiin kaale soo sharax wasiir noqo ama dawlad u tartan laakiin inaad kor fadhiisatid aad tiri ani mufakira ahay ama nin waxaa ahay wax taxliilo oo qulubta dadka aad daalacatid ilahay hortiisa beri waxa waaye waa ku sirmaysaa wuxuu leeyahy marka ibnu mascuudin sidoo kale wuxuu ku leeyahay ibnu cabaas isagana jadalka markuu ku hadlaya wuxuu leeyahay aljadal walimara waxa waaye uu yihi qofka inaad hadalkiisa aad ku celcelisid xataa tuqdibu akaaka inaad dadka ka caroodan walidalika dada u sacbinayo sheekha maanta waa hebel maanta sheekh hebel dad ku kor socday maanta hebel karbaashay war kuwaas waxay ma taqaan salaad ma tukadaan waxay garanaya ma tihid maanta farax ay ku farxayaan ama ay intaas view ay helaysid ha u malaynin ilahi subxana wa tacaala inaa aakhirada aa kaga fakanaysa ha u malaynin saas daraaddeed aya waxaan leeyahay marka wuxuu leeyahay sidoo kale ibnu cumar ayaa wuxuu leeyahay asagana tabarani tafsiirkeeda aayaddaas kaligeed le wey wuxuu leeyahy waxaa jidaalka imada waxaa la jeedaa wuxuu yihi asibaab walkhusuumaat waay caytin waay dadka in la caayo kuwo kale ay dhalinyaro ah isku sheegayo ama qabiil ayay dadku caynayaan ama qofay shaksi ah oo taagayaan yaa ku baneeyey inaa qof shaksi ah amaanta aad caydid aad tiraa saasoo ka wada qabiil hebel nacaraadka jaahiliyadu soo bixinaya taas w miraa'ada wey walidalika miraa'ada muxuu qur-aanka ka yiri waxaa yihi waa sifaatka gaalada ma aha sifaatka muminiin nin mu'min ah ma aha dadka oo qasamka inuu dadka adkaada tuso inuu dadka tarafuc iska sameeyo oo ka weyn yahay ama inuu wax saxo oo rabo oo caay u bedelo ama mucaarad taageero ama dad dawlad oo taageero ma ahane wuxuu yihi aljidaal ilahi subxana leeyahay ma yujaadilu fi aayaati illahi ila aladiina kafaruu ilahay wuxuu sifaatka kufaarta ka dhigay waxaad aragti nin dooda haddaad aragtid oo aragtay ilahi subxana wa tacala aayaadkiisi wax ku doolahay jadalka waxaa iska lagu yihi ilahay ku kufriyey aayad kale wuxuu ley wa min annaasi man yujaadilu fi illahi bigayri cilmi dad waxaa jiro cilmi la-aan dadka dood inay kaga adkaadaan rabaan oo muraadaas ku jiraan bal xadiiska nabiga ala ilahay xataa gaalada oo dooda la banay gaalada ilan cadow waa isku nahay markii lala hadlaayo ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahy
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن قيدا لقلي جدل كمركز قيدا وكجرة بينما مركي مؤمنين اللي هلا وحليه هي موعدة حسنة موعد وهي وحناكسن موعدة لغة الماما لكن جدل كوحليه حسن وهذا أي هالكاس وقلي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كأبي أمامة أي وحليه هي ما ضل قوم بعد هدى وبعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل وحليه النبي عليه الصلاة والسلام قوم مجروا يري أو إلهي مركو هنوء كان كبعد هبابين إلا وحليه هي وضد إلهي مرن إيو هبين كستين اللايف سو قالوا أرمها يماذا وحكدك النبي عليه وحليه حديث كلا والنبي عليه عائشة وحليه إن أبقض الرجال إلى الله الألد الخصم وعودتك إلهي ونعبيه وضدك وحكة صدوات كدالية مرن أو كدالينا يا مرن أو ولي أصينه قوات كاذربه أصلي إنه صح سنيه ولذلك ضدك اللايف سو قالوا وحيو قبان ضدك ليه قلدين يجي يسحسيهن ما أنت وحبط عليه وحليه لا يقصد لقاض لها ساس لقاض لها أيوة ما أنت وكجرا ولذلك markay diin ay sii tahay waaba kasii daranta qofka muslimka inuu diinta wuxuu aqaanin uu ku sii doodo waxaan leeyahay marka xadiis kale nabiga kaleey sallallahu alayhi ugu bishaareynaa dadka ka taga marka dadka yaakhi ilaahay shaqadu ku sii shaqadaas qabs shaqada ka dhinin habeen kasta in Allah soo gashid ummadooda xamatid oo aad dadka qasab u gashid oo aad dhacdo kasto dimbi kafa mar ism maxalli dimbi kaasa kaaga habeen kasta in Allah soo gashid qarax inta ka dhaca wax ka tacliiqisid hebel markii la caayo wuxuu sameeyay dadka daba socotid wallahi billahi waxa waaye waxa en kaasa dimi kugu filan bikulli ma samicna wax kasto dadka dhaca ka shakeysid moori ma ihid marka lacagta meel xun ka gashay ila waxa raadinaysid rizqa hada wax sheegaysan ala aqal umad isku keen ummadha kala geyn laakiin ficilkaas waa qaldana kana saxay kana ana saxina tiraahid xadiiskana ku soo gabagabeeyna wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam dadka ka taga dadka oo doodaas murankaas ka taga وأن لايف كاسي وحس أن سوق قلين وحول النبي عليه أنا زعيم ببيت في رفض الجنة لمن ترك المراء ولي النبي عليه الصلاة والسلام وحاني زعيم هو قام ونقنا يقولي جنة كويا لولي النبي عليه الصلاة والسلام وحس كسر ميسن لول دائما كاس كسر ميسن وحول لي هاي نينكي كتك الضوء قفا كل مرمي هبل المسحانية هاي هبل المخلدية هذيك ما رتقي وعتيد ميد سما وحس حس ما وحارة تشفي نفتا إن رالي جريسارتا وحادي جعشارتا دتكنا وشيكتيد ولذلك وحول وإن كان محقا حتى هذا حق لنا كتكتد كواسا جنة جلا بيت جلا يوري نين وحاجر هذا الكل شيء حتى أصل صحة لكن حول لي أنت أمد اسكو در لهاي أنت هذا الكي قدرت حنسحن وقاض لهايين أمد اسكو دع لهايين وحن وكتجا ولا لاش كان وكبحة وليه هذا يعني واقع كتبقى والله في مركز هايو دتك ما لك سو هذا استيقان إيجا استيقان وبيت في وسط الجنة أو هجان وقبنا يوري لمن ترك الكذب نك بنت كتجا وإن كان مازح حتى هدو أسو كفتما بنت اسكداف تدا بنت كو كفتما حتى دتك بنت أن كو كفتم من النبي عليه الصلاة والسلام قولوا أحد هذا كويا وسط كذا أما عليا وفي بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه يوري النبي عليه الصلاة والسلام مركا هل كاسو حكار كيسا إسلام كأخلاق حن الصومالي كسو بيرتي وهذا إسكاجد دينه وحوي ورد على يردان يرير iyo dadkan oo live ka habeen kasta soo galay oo dhahay dooda qabanayna hebel karbaashina nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wanaga jiray sifaadkii gaalada ku jirtaan dimbi taasaan ugu filan sida aan sheegnay marka inaad is ilaalsan waleelka salafku waa ka degi jireen wuxuu yiri waxa laga hayaa ibn Abbas asar ajiiba wuxuu leeyahay la tumari akhaka walaalka hala murmin oo dood iyo wax khilaaf keenay iyo inaad dood kaga adkaatid arinta inaad ka adkaatid laakiin قال هذا خمارك يا لو كلات كذا دينتي مساس معها وعليه أسمين فإن المرأة وحليه مراء لا تفهم حكمته ولا تؤمن غائلته ما لا قرقروا يمشوا قدام بينه إن وحن أشيء يصير ماشي قدام بينه بل أبي ذر وحلقها أثر لها من استحقاق حقيقة الإيمان ترك المراء وحول إيمان قف حكام النقناع قف أفكيس إلى الصدق وعرب كيس إلى الصدق وأن ما أنت لن تعليق عن السميني وإذا باب كاس مركا وحو أفر من دتك لن أيها بينك سوفر يسناي لاف سوفر يسناي بلا عليه كهذا لا يعني هذا وفي حتى تستر حتى حاران دعدو أنا والله يا حتى كفسي لا هذا هي ده تيفي ما أنت تقول لي كفسي على هذا يا وركفلك صح دينت ما أقول لكن وسي أير لو داوي لكن الله سوفر يسناي ما أنت كفسي كهذا يا وأد قبل عروض أكشة كيسي أي دينها كوبا نيسي هاتي قبلها عروض لك شكاية مركب حاسب أنت كوان يجي فساد وضع يجوا قاقام مسكينه من داعية هاي ما أنت لأنه حكي شكاية يسا حبني ترنك وليش قبلها كشكاية يسا وحلا ذي جذوع كان كهذا يا وحلا يبا قال ذي إنه العقل خصوصي جذوع كهذا اللي يجري ما جذوع ولا كهذا يا لكن ما إن ملأ إيو
suuxan jadalka iyo dood waa laga fiican yahay wa ilaahay waa naga reeba jadalka cibaadaadku buriya xajka waa buriyaaliya xajka waa laga reeba dadka xajinayo maxaa dhacay hadda jadalka waxaa waaye qof inaad ka adkaatid wey marka dadka lifeka soo galaya dhan waxay rabaan inay dadka adkaadaan ay rabaan ilahay subxana wataala xaq hanoo tuso qadka telefoonada insha allah ayaan qaban doonaa halo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ السلمية. وعليكم السلام الشيخ وما شاء الله أرنت عن بدو إسابة الصوماليات. بارك الله فيك. waxaa isqabanay xaaskaygaan isqabanay waa gartay marka xoogaa waa kala boodnay marka muddaa kala maqneen waa gartay markii dambe waxaan hoosta maaragtay aan qudbisano ku guursaday eedadeed waa gartay marka bal diinta maxay ka qabtaa eedadeed oo aabaheed la dhaltaa may eedadeed oo faamilka aday qaraabada may qaraabada waa ku banaan tahay laakiin eedadeed aabaheed la dhalatay gabar wuxuu nabiga alayhi salatu wasalaam gabar laa tunkaxu lmar'a maca camatiha walaa khaalatiha gabar wuxuu yihi habareerteeda lama nikaxsan karo nikaaxaas baatil uu noqonaya waa habareerta uu la dhalataan ka hadlaya ama qaraabada koro akhlaaq ahaan ma wanaagsano akhlaaq ahaan dhaqanka soomaaliya markaa fiiris maxaa yeele curfiga wuxuu ku mid yahay almacruufu curfun kalmashhuurati shardan aa la yidhi curfiga mararka qaarkood soomaalida ma wanaagsano inaad raximka halkaas waxaa ku baxaya raximka ku kala go-ayo waa isnacan dabcan islaamanka la isla qabo mar kasta khilaafaa ka dhex dhacayo waa isgoynayo marka adiga waxaa darafka noqonaysaa dad qaraaba inaa kala geysay marka ma wanaagsan lakin nikaaxaaga xalaal uu ku yahay haddii arkaantiisa ay kaamil noqotay waa ka qariyay qudbisareed waxaan u qaatay ehel kale ka qarisay laakiin wadadii sharcigaheed waa martay soo ma waa maray taasay soomaalida qudbisareed u yaqaanaa inta badan nacam marka ilaahay kaga cabso kulleyto laakiin nikaaxaaga xalaal uu ku yahay بارك الله فيك شيخ هذه أطبق الكلام بارك الله فيك إنعك الهلو هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسلم يا شيخ وكو سلامي وكو جعل هاي شيخ ولا كو ديستو إلهك وجعل هذا أخي إلهك وجعل هذا سائل جعلات إلهك وجعل هذا جنة فردوسا على نو كل مين آمين آمين شيخ وحارب لبس سؤال إن أنكو ويديو تنكوات شيخ وحاواي وعديك أو موسيقى لكو صارايو هدي أن كتغو دينتو محيكي قبطا طيب واقر سؤال شلمات سؤال شلمات وحاواي waxyaabaha la dhaho qaaraanka kuwa la leeyahay qaaraankeen oo qaaraan tolka keen waxana qaaraan hadii masaakiin lagu ma gargaaro oo dad masaakiin lama siinaayo oo dad masaakiin lagu ma xariirnaayo oo tuulooyinka iyo meelahaas waxba lagu qodmaayo marka qofkii qof diiro baa maarka la siinaayo anigu marka ma dhiibayaan diintu maxay ka qabtaa waa gartay laakiin qaaraanka oo dhan saas ma qaaraan dad lagu kaalmeeyo dad wax lagu caawin waa jira ma qan adiga qaaraanka hadii jira mid caan ah qaasa qaaraanka sidiisaba أنا هذا كأجب الله سؤالان كودينا محيلي قارنك waxay ku xiran tahay wax loo qaadayo ay ku xiran tahay xukunkiisa qaaranka ka waabanaay yahay dadkina iskaashadaan qabaa'ilka qaasatan hadii ay tahay diinin oo naadeer aad tihiin oo qof qalad ku dilay in maadeerta bixinaysa diyada markii ilma maadeerta laga soo aro ninka kas wax u dilay kama hadlayo ninka wax kas u dilay kama hadlayo laakiin ninka qata dilay oo gaf kam wax kaga dhaceen oo haddana loo haasto diyadii kaas oo kale naadeertiisa ama caaqilada bixinaysa kaas oo kale waa la bixin karaa qaaraan qaaraan haddii qof xanuunsan isbitaal ugu geyna waa la bixin karaa marka waxa aad dhibsata sheeg oo qaaraanka ku tacalluqdo shiiqo waxaa dhisna waxay taabtay cid walba ayaga istaqaano beeshan anaga isnaqaano oo qaaraanka inta badan dad waxaa jira xanuunsan oo aniga aan garanayo oo beesha ka mid ah iyo dad dhibaataysan iyo dad maaragta oo abaaro maanta abaaro heeso dad badan aan garanayo familka qaraabo kuwaas ma toos ugu dir kuwaas marka toos ugu dir talaan ku siinaya marka toos ugu dir qolada qaaraanka waxaa tiri halkee wadaan meeshaas waa geeyay anaa u diray toos u diray ama weydii halkee geynaysaan lacagtaas hebel loo rabaa anaa u diray dheh haddaa ka shakaysantaa dadka qaaraanka aruurma oo tal waxaa ku gar waxaan dhahay war qaaraankan haddii maanta intaa beeshan keliya intaan iska aruurino haddii annay keliya ata isku bixino waxyaabo badan ummaddan soomaaliyeed dhib badan aan ka saacidi karnaa oo maaragtay oo aan ka furdaamin karnaa haddii annaga aan isdabarno dariskeena beri waa dabari karnaa laakiin haddii annaga wixii aan qaadano odayaashun bay kala turturtaanoo ninkii mooryaana wax soo dilo le lagu bixiyo kii xaqa u lahayna maskiinka ahayna dulmanaha ahayo dhibaataysnaani
shahaada laga daawado حق أولادك bixin maayaan beri aan ka ah idinka marka idin taalaan ما تاس هدي جرتو أخي تاس هدي جرت حق أولادها هدي دتك حق أولها لسنين أو دتك لا أفرج جاب ليال إجابك وشوفنا يان حق أولادها ينادي إن شاء الله سؤال هذا كلمة كجواب دون قد كتلفون كدين عكله شيخ وصلي الشيخ وقر الله كستي وعرض السؤال يرديني أنا كويدي هاي شيخ صلاة الصبح بربر وعلى جابا التحيات كنت تسوقت أدو كنت لما التحيات وصح صلاة أفرافر تروح على جابا إلى أدو كنت بربر سدح التحيات لكن وعن شيخ الرواء إلى أجازة الصلاة المغرب كان مر مغرب كواس سدح التحيات مغرب مغربكم حاجة وعلى جابا رجعنا كون إمامك أفضل التحيات وكانت تسوقته التحيات كسلت دكتو التحيات كلا أو كيلو بعد الصلاة على دكتو لما نرجع كون من التحيات لو دحيسينا التحيات لو دحيسينا مركز أربعة أنا أقول الشيخ يا أخي التحيات كإحنا مركز تصنع وهذه كود يزيد إيمانك كقاعدة دملا مشكلة يكون أبور التحيات دي بدن يكون أبور التحيات كأورقنا جا وكان قدام بيوي كان كواد إمامك يكون حرتي قصب وإمامك وحوا إنار هذه دوي إنار رعد وكو قصب انتهاي إنما جعل الإمام ليتم به أصلا إنار رعد وطلع عليه مركز سو استاكتد مركز حديث انتهاي أو استاكتد هذيك السجود ركعة ما بتوكل معايا للسجود أكهم مكان ماشي التحيات كاس وإمام كله كوي راعدي اسمها ركعة معها معايا له ركعة وحكم مكان سجودي ربي اغفر لي وحي أغلب السجود أكهم مكان هذا فريسة لها تنوى استاكت صدر التحيات كان دنبو كصح صلاة هذا لما يسترني سامركم مشكلة ما الأخي بس لما التحيات لما نرجع نحاول التحيات في ناس قراوية هذا فكرتها التحيات كسنة وها هذا فكرتها لنعقل له نعم أدو سؤال جرين سؤال شو راك جوابيا ألو 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 قف كاسو عن فيليا أصغنا طيب سؤال شيء هو ويلكو حلي هاي وعدي موسيقى له طبعا موسيقى ذا وحقه وحي موسيقى أو مسمار ما في عنه إلا دقيست لكن مرق قاركود دربان وحاجر وموسيقى عمله وحاسو كلادي دقيسين كرتين لما لها لكن قفك هدو سؤال شيء ويتسو هذا ما كتيجي كرا ها دا كتكتي ما دقيسي كرا وواحد من الأسكواس لكن ما كتيجي كرا إنك تكتي ذا كورون نعم وحي أتشكك كاقلا لنعكلا لو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال سؤال ربنا كويتي ولا تفضل أخي ويدي walaalow haddii tii alla ii timaado waxaan joogaa dalkan sacuudi ee bahalkan ingiriiskaan joogaa waa gartay meel aabay ku aasan yahay in laygu aasaan raba haddaan idhaahdo shareecada islaamku maxay ka qabtaa qofku waa ka dardaarmi karaa dardaaranka meesha lagu aasayo waa ka dardaarmi karaa laakiin ilmihiisi caruurta inuu dhibaa ma wanaagsano ilmahaga inaad taklifa saarto iyo qaraabadaada ma wanaagsano laakiin dardaaranka waa banaaya in luu yidhi qofka meeshaas lagu aaso waa mahadsantaha baaraka allah fiik dhinaca kale الو طيب قفك انت اصلا تليفونك الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ وصولي واكو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا يكو بركي هذه iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada aamin jazaak allah khair waan dhageystaa ma sha Allah aad baan ugu taxnahay waana ku mahad celinayaa su'aal hadda ka jawaabtay sheekh Suuliyow iyadoo si kala ay soo martay marka nin dhalinyaro aan saaxiibnahay ayaa wuxuu mehersaday gabadh wuxuuna ku mehersaday si qaabkan maaragtay qudastirada la yiraahdo oo maaragtay aan waalidiintii loo sheegayn laakiin hoosta laga mehersanayo bal sheekh marka arrintaasi faahfaahsan samee ma gabar eed mas garob anagu saan uga faa'iideysano garob la soo guursaday نعم بارك الله في أخي أصلك قبل وإنه ولقيت لويدي أما قربها أهاتو أما قبرها أهاتو لكن بني آدم اللي هي قفا دعاية مرق قاركود قف كنا الشرع الإسلام كقفكوا على الصحة قفك كستو دعو
wuxuu leeyahy qaab lagu saxo oo qaabkaas ayaa lagu saxaa hadday dhacday inaa weli la-aanteeda aad guursateen waxaa wanaagsan inaa weliga gadaal loogu sheego cala alaqal oo la yidhaaho gabadhi aan guursa sidii soomaalida ay samayn jireeno gabdhahay boobi jireen waalidkay kala carari jireen markaasay xaal keeni jireen waxay dhihi jireen gabadhii ninkii wiilkiina guursaday tolkii imaanayo marka gabadhii waxaan rabnaa xaal in nala siiyo aan bixino odaygana marka waa la raali garan jiray waa iska ogolaan jiray hadduu ogolaado marka nikaaxaas wuxuu noqdo mid sax ayuu noqonayaa oo ah maxaa yeele weligii ew lagala dhuuntay ayaa haddana mawquuf u ahaa asoo ku taagnaya muwaafaqadiisa waa loo soo celiyey sidoo kale gabadha kalookan haddii saasoo kale ay dhacdo waxaa wanaagsan walaalka inuu ama qaraabadeeda in loo sheego ilan gabar ciddeeda u diideysa ma jira inay asturnaato qaasan casrigan lagu jiro dadkeenaan yurub joogo laakiin gabdhaha markasta waxaan ka waaniyaa gabdhaha halkaan waano halkaan ugu diraya gabdhaha waxaan ka waaniya gabdhaha oo waalidkood laga qariyo oo lala guursado intana soo martay dacwo nimanka way dhibaan maxaa dhacay marka hore dhuumashay ku guursadaan hadhowna marka ciday u sheegi karta ma laha culummaday kusoo carartaa waxay leedahay aniga ehelkeygi ma ogo maxaan leenahay marka aniga mala dhihi karo ninkaxa horta baatil wey ninkaxa marna baatil ma naqanayo ilaa iyo wax la helo ma ahani ninkaxa waa mawquuf weligaa lagu xiraya saas daraadeed gabdhihii maxaa cidoo kaga cabsanaya male nimanka soomaalida haddana ilahay intooda badan kama cabsadaan dabcan waa jiraan kuwa ilaah ka cabsado ma jiraan marka gabdhihii marka hore been bay usheegayaan waxay nin fiicna iskaga dhigayaan hadhowna markay saas ku mehersadaan gabadhii walaalkeed mu sheegi karta ilan walaalka waa welig waxa gabadhu ka dhicina protect u yahay sanad u yahay bili ninkaas hadduu gaf ku galo wuxuu leeyahy war gabadha walaashay soo maxaa saas u galaysaa wiil gabadhayda ninka aabaheed wuxuu leeyahy saas maxaa u galaysaa taas marka gabadhi ma sheegi karto maxaa yeele walaalkeed markuu ninkax uma soo sheeganin ninka dacwadiisa u sheegaysaa ma u sheegi karto marka dhibkaasay la kurmaan marka maxaa khasaaraysaan ma laha gabdhaha ragga haddii xataa gafni iga dhac gadaal ugu sheegay insha allah qadka telefoonka dhinaca kale sheekh ilaahay dartii baan kuu jeclahay laba su-aal baan ku weydiin lahaa sheekh ilaahay dartii ay jeclaad ha ku jeclaado janno firdaws allah nuu kulmay akhi axabaka allah aamiin sheekh tan kuwaad sheekh waqtiga aan shaqada ku jiro sheekh break timekaygaan salaada ku tukadaa maasha allah markaas ma anuu sigisaantii xidhan ayaan weysada biyaha korka ka marin karaa mise inaan saaro weeye xukunku siklaanka markaasuu gashanaysa weyse ma qabtay markaan guriga aan ka baxo anuu weyse qabaan ka baxaa mar hadday kaa jabto aa suuli gashid marka labaad sigsaanta masixin kartaa jazakallah su-aasha labaad sheekh qofka aan zikada siinayo inaan u sheego ma shardiba mise inaan haddaan u sheegin zakada way waajibaysaa zakada waa shardi maha inaa u sheegtid adigaa niyoonaya kaliya qofkaas shardi maha inaa u sheegtid adig le niy lagaa kaliya jazakallah khair sheekh baarak allah fik dhinaca kale halow su-aashaas ma jirta iyadana marka jadalka ayaan ku jirnay qofka wuxuu leeyahay cumar ibn khataab ayaa ahar laga haya asagana cajiiba u dhahayo walan yusiiba arajulu i xaqiiqat aliimaan xataa yatruku lmara wa huwa yaclam anahu saadiq wuxuu qofka iimaankiisa gaabin ma naqanayo ilaa iyo markuu ka tago dooda iyo muranka ka tago walidalika dadkan habeen kasta muranka usoo taagan oo raba inay dad qanciyaan ya akhi ilahay raali garay dad lama raali garayn karo wallahi dadka aa raali garaynaysid beri iga qiyaamaha kuga markaati furayo hadda kuu sacbinayo ayaga kuu markaati furayo beri waxay leeyahy ninka anagoo ra'yigeenu ahaa jiri marka hebel inuu ku ammaano oo ku yidhaha wallahi ninkan kooxdeenu ka tirsanaa jiri waa nin hogaamiye ah brofesor ala leh ay brofesor maalin kasta habeenka meel taagan oo wax dacninaayo oo ummadda cerdooda ku xadgudbaayo oo ummadda isku keenaynin oo ummadda kala diraayo oo maanta dhan maxaa dadkan kuu qosdayo waxay kuu qabteen ma laha iimaanka waxaa wey qofka inaad ka tagtid waxaas iska dhaaftid kuu khayr badan u leey cumar ibn khataab aayadda qur-aankana saasay tiri qadka telefoonka halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh hal su-aalan qabaa sheekh usuli tafadal akhi weydi sheekh waxaan rabaa salaada micnaheeda qofkaan aqaanin akhris ahaan hadduu u yaqaano salaadaas maqbuul ma tahay nacam talafudka cibaado ah laakiin ataxiyaadkoo kale qofka micnihiisa hadduuna aqaanin samic allahu oo kale maya maqbul waay maqbul macnaha inuu fahmo shardi maha macnaha khushuucay u saadinaysaa qofka laakiin ereygaas inuu yidhaaha oo ku dhawaaqi karaa muhim walidalika dad badan aa ku kalsooma dadka aan aqaanin akriska inay bartaan wey salaada ma ku ansaxayso qofka inuu yidhaha faatixada niyada ka akrinaa shib afka dhan carabka ma dhaqaajinayo wax ma dhaqaajinayo faatixada niyada ka akrinaa ataxiyaadka niyada salaada waa ku buraysaa taas laakiin inuu akriyo macnaheeda shardi maaha inuu ogaado ina micnaha muhiim micnaha qofkaan aqoonin yani waa maqbuul ay u tahay maqbuul ay u tahay insha allah alxamdulillah hay insha allah sheekh baarak allah fik
dhinaca kale halo qofkaas isagana waxaad moodaa inuu telefoonkii uu ku dhegan yahay nacam wuxuu leeyahay malik ibn anas ayaa asr cajiib laga soo guuriyey wuxuu yihi almira wuxuu yihi yuksi lquluub wayurisu daain wuxuu yihi ninka maalin kasta dood u fadhiyo oo ummadda inuu maanta wax lee dacniyo xadas kastoo dhaco rabo inuu wax ka comment ka sameeyo oo tacliiqo uu rabo oo wuxuu leeyahay qalbigiisa qalal ayuu yihi maxaa wuxuuna keenay ayuu yihi dadka inay xumaan isku qaadaan billahi caleyk waxaa umada anas anaga inuu nala joogo hadda dadkan wax wada tacliiqo habeen kasta life ka soo galayo qulubta dadkay kala geeyaan wax yar ay u qabsadaan way qadka telefoonka halo halo ha qofka xaaraanta daldasho oo hantida qaranka isticmaalo hadday jirto iyo qofka xalaal cunka salaadaha sidee loogu kala aqbalay ogyahay baaraka allahu fiikum ninka xaaraanta cuna dabcan salaada intaa la gaarin cadaabka ilahay u galayaa xoolaha qarankaa ugu sii daranba ninka cuno xoolo dadowna ninka cuna ilahay ma cafiyo ilahay waxaad ninka salaada uu ka taga ayaa rajo leh oo ilahay inuu cafiyo laga yaaba ay kan soonka ka tago lakin ilahi subxana watacaala xaqa bini aadamka ma cafiyo xaq bini aadan aad ka gashay ama wadanka ummad dhan xoolaheeda aad ka gashay ma sahlana marka salaadan asalkeeda waxay ahayd tanha can ilfaxshaa walmunkar salaada inay xumada kaa reebteed maxaana ninkaas salaadiisa ma socoto maxaa yeele nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina arajula layusalii 60 sana walaa yuqbal minhu salaata nin waxaa jiro 60 sano tukanaya salaada laga aqbalayn nasal salaamat alcaafiya marka dadka inta badan waxay isku dayaan ay xooga saaraan salaada ilaahay subxaanahu watacaala oo ah safka hore ku jira ganacsada waaye laakiin dadku dhaca wasiir waaye madaxweyne waa ummadda xoolaheeda su asaga leeyahay camal ugu tasarufa laakiin salaada safka hore ku jira salaadiisi waxay taraysa mala maxaa yeelay waxaa laleeyahay diintan waxay ku dhisantaha laba rukni waxna waa lagu faray waxna waa lagaa reebay walidaalika waxa lagaa reeba adag waxa lagu faray sa awoodda u samayn kartaa oo haddii salaada istaag ku tukan fadhiga ku tukanay waxay leedahay walidaalika nabiga alayh salam wuxuu yihi idaa amartukum bishay faatuu minhu ma statactum waxaad inagu amray intaad awoodiin saa u awoodi u sameeya awaamirta laakin wuxuu leeyay wax haddii lagaa reebo idaa nahaytum fajtanibu nawaahida arag walidaalika qawaacidka waxaa kamid ah yuktafaru fi lawaamiri maa laa yuktafaru fi nawaahi awaamirta wax lagu dib oo lagu dhaafi karo lagu sahli karo ayaa wax xaaraanta ah walidaalika soomaaliya dhan u badan hadda ka horna xalaqaadan ka sameeya tadayun makshuush soomaaliya waxay ku dadaashay soonka iyo salaada iyo laakiin xuquuqda kale iyo xaaraanta iyo cunays dhan buu u qabtay in loo qabsanayo nasal allah salaamatu caafiya qadka dhinaca kale السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي وكم مغلق شيخ أنا وحلي لها عبد الناصر محمد مركز شيخ وحلي لها عبد الناصر محمد هل سؤال بانقضى هل سؤال هاي ويدي أخي سؤال شنقا وحيت هاي شيخ أنا وحان أشقى هيئات مشاركة وحي كسور ردان أكاون يكسور ردان أكاونك مشاركة كسور دعو waxaa saaran ribo marka lacagtaas ribada ah oo saaran hadda ka hor adigoo sidaan camal su-aal ka jawaabayaan maqli ha u celinina adigoo dhahaya marka ribadaas yar oo saaran masaajidada geeya adigoo dhahaya marka waxaan rabaa masaajidka maan geeyaa mise ayagaan dib u dhahaya ribada iga gooya marka u celiyaa mise masaajidka agoon ma siin karaa haddana agoon ma siin karaa oo نعم أخي إلى خير قصيو أن هرت أيها هو علنين حيا لي كسو صار مساجد ده حتى واحد ده فيلا يعني كان واحد تيشو يدي وحصل له قضاء واحد إهانة أو مسقولها مساجد ده سولي قال تيشو لو بهن هاي تيشو قصر له قضاء يعني لكن واجر بعض الفقهاء والله يصدق ما نقنس طبعا إن الله طيب لا يقبل إلا طيب لكن وبنانته قدرتك كان لسي علماء فضوا واجرتها وقول واجر الله مساكين تي دتك أوامك ولا سكسيكرا maxaa yeele iga meesha ka timid in loo sheegay shardi maaha adiga xalaalay kusoo gashay oo igaas waa sadaqa intifaac ku samayn karaan laakiin anaga qolka waxaan qaata dhahay ihaanada ah jididka lagu dhisay iyo waxyaa dad cun la cunsiinin labada qol waa jirtaa marka laa baas haddaad qolka cumlada kalena aa qaadata dhib mala haddaad aad tiraahidna tushugaas aan kugadaa wax fiican wey laakiin marna mala dhihin iga haloo daayo meel ay ku jirto mal waa laga soo qaadaya dhinaca kale الو الو ها
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيخ وحاربنا سؤال كويديو هيه إن صلاة معنا دنك إذا عليس وين يجي سعرن أو وسواسي مركا إن مركا حيرنا يوكله هل ساعة ونا أتجنا على جياوا هل مرة خسي هرا من كحيرن كذي واقرت مركا مدب بدن هذيك السنة ذوين أيو أسكار فحس كور نقبي جرنات. نعم أذكرت البدي تسبيح البدي واجمد مدة كله وسواسك وحيابها ودتك وجيل حوالي أما حرن ما حرن أديك وكلا صلاة ده صح يكون غنيسة سهرتك وحرو حتى تاكشك يصير صح يكون غنيسة عبا تنكود أكو حرتيد أن يدق شديد شيدان كمرن يقول لي مصحنا وصحنت حتى هذه قلدنتها هذه وكلا وصحنت إنها أكو أسكيسة تدوي معي النبي عليه الصلاة والسلام وعنو يري هذا ويسقات كذا ما أنت نجعنت أفر جير شنجر دقائق وحي صدح جير كبنا وسواسة قال ماشي كجوجي لا هالمرة هتتاس هل كاس مريكو أنسى حيسا مركا هل كمرة حرتيد مركو نعوذ بالليسو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله بدأ تسبيحه بقول كن آخر إن شاء الله وكابحه وسواس إن شاء الله خير الله. بارك الله لنا كله. ألو وفق تي في وداونا يا تلفونك يقول صعب تلفونك يقول صعب تيكل وكاجو يا وفق سؤال شقبة تلفونك كصعب عم في لي قف كص ألو واسكش كيسنا قف لنا كله إن شاء الله. ألو قفك استسجن واكجوا إن شاء الله إلا وقفك كلا إيمانه. إذن وحكى أياجر مالك بن أنس وحكوا له وحوليه كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله وعرين عجيب وي حتى وحليه ملائكة مسود دقيسو ما شاء أردنين مورن لأسود تاغنها بين كستو dood inuu ciwaanku soo qorto oo dhahayo maanta waxa karbaashay waxa la yeelaa malaa'igta xataa ku daawana xataa malaa'igta mu imaanayso nasal salaamatu aafiya dhinaca kale low السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وسيدي سيطاي ما فعنا الحمد لله أخي. سؤال خلاص سؤال اللي بحيتاي مرمر سفران قلا مرك أنا سفر كجرا أو ليه أقول مثلا وحام ضحي هذا أو كلامانته وكلا صلاة المغرب wuxuu galaya malayna 7 o'clock marka hadaan baxo 6 o'clock oo safar aan gaalo meel 200 mayl ii jiro marka meesha tago misku dari karaa salaada maghrib iyo cishaha waxaana laga yaabaa inaan soo noqdo salaada cishaha wili jiro may wasku dari kartaa oo salaad wax la gaarin may wasku dari kartaa xagga aan u joogo soo dari karaa hadaan soo noqdo مثلا ka soo dhig 2 o'clock يعني لسالتي وايجرا مركه مغرب عشاء كدري ها نعم صلاتك لغا مره مر هذا مسافر تاي صلاه المغرب اخر ساعه عشاء كدرتي لما عشاء يسدح المغرب وتكونيسا غورغا marka soo noqotid inta عشاء oo wili soo jirta soo noqotid salaad laga maro taada hore ku jirto جزاك الله خير نعم سلام وياك dhinaca kale الو عفيلي قفك أساساً تلفون كود هلو 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 الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ واكو سلامي الله كبركيه. بارك الله فيك أخي. شيخ سؤال يربا كويدين ربي واقرتي سؤال كواد waxay tahay ma garanaysaa suuqa oo loo yaqaan forex-ka lacagtiisa ma banaantay xalaal miya mise xaraam waaye hadaa ka shaqeysanaysid akhiyo forex dhor jiraan ka hadalnay nuucyo badan uu leeyahay forex guud oo wax la sheegay ma laha marka tafaasiisha waxa wanaagsan lambarka qaado tafaasiisha soo sheeg habka aad wax u gashay telefoonka dad badan ku jiro insha Allah. Okay haye okay mid labaadna waxa weeyaan salaada guriga lagu tukanayo diintu maxay ka qabtaa ظروف ما جرت waxa lagu tukanaa ma jirto sabab duruufada yani ma garanaysaa meelaha waxa jira oo albaabo oo kale to subaxii dhaqso aan la fureenin markaas duruuftaas leeyahay wax kale weyn ma jiraan hamay waa salaada guriga waa ku ansaxaysa jamaacada rag waajibka lahayo qolka raajixa jamaacada sunna muakkada way maaha waajib maaha cinda alxanaabila qabto waajibka inuu yahay marka waa ku ansaxaysa guriga qofka tukada insha Allah.
هاي شيخ وجزاك الله خيرا. لكن جماعة أجر بدنا كوجا كفاية جماعة أساس يكون أكسنته. هاي شيخ. قدك تلفونك؟ حملينا حلقة تلفونك سأيقود دنبي. إذا وحلا يهي أن أنكسو جبينا يا ما دام حلقات البرنامج واسك جبية هي أن جدل كديبات بدنا وليه. dood aan dadkan habeenada kasto live-ka soo galayo ama kuwa mufakiriinta ah oo maanta dhan iyaga ra'yi dadka sheegayaan dhan ra'yi kale sheegayaan hadduu xataa ra'yiga wanaagsan yahay wuxuu bedelaya ma laha laakiin ummad buu kicina marka ina ra'yiga waxaa wanaagsan inay dowladda waxaa la rabaa inay yeelato meel ra'yiga lagu soo gudbi karo ummadda fiir anaga waxaan rabnaa waddan inaa badbaadina shaksi maaha shaksi beri baxa kii hore waa baxi karna waa baxa nin joogaya ma laha laakiin inuu wax inuu hagaaga asal noo ah saas daraadeed ayaa waxaan leeyahay jadalka aahaartiisa waxaa kamid ah oo maxmuudka ah inuu keeno inay dadka isnacaan waana aragnaa maxaa yeele nin kasto maanta wuxuu soo goosanaya caayo soo goynaya waa las caynaya waa xan la casriyeeyey waay ummad dhan koox dhan la xanaya wasiiro baarlamaan la xamanaya waxaas dhan la xamanaya qofka inaad wax sheegi kartid oo taqwo ah waa fiican tahay laakiin taxliil siyaasadeed حتى حتى دتك وعدي لها ودي لها إلهي كعب صدر بارمان هي ساس حرام وي لا لكن أساك تحليله هيا ساس إني سمين ما هن سانا أهد كانوا كوضا كانوا كيلا ودا وجدل وإلهي سبحانه وتعالى نوجد دقي مركب يبكى سيد عايو واحد دان قضي نفتي ذي شيطانك أهاتي حلقات كانوا صعنا يعني وأنك هذا لأنه وحيابها أخلاق حن ودتك إسك سهل سدين حلقة كوا تاسن كهذا حلقة كلام كهذا دون وقيب كلا عصب إذنه وحيابها إلهي الدين تنقربتي وحدان قلدي نفتي شيطانك هذا صح توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.